السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال soo dhawaada mar kale maanta waxaan idin wadaa barnaamij ku saabsan sida aad u samaysan karto akoon Facebook oo cusub. Dadka qaar waxaa laga yaabaa inaan Facebook si loo samaysto aanay aqoonin, sidaa darteedna dad kale ay u sameeyaan sidaas in ay kula socdaan xogahooda dhan. Sidaa daraadeed maanta waxaad kaga maarmaysaa in qof wax ii sameeya tiraahd Facebook ayaan gudaha u galnay, kadibna qaybtan sare waxaad gelin doontaa lambarkaaga ama emailkaaga, qaybta hoosena passwordka markii aad samaysid akoon. laakiin hadda anaga waxaan sameynaa akoon cusub, waxaan tagaynaa qaybta hoose, kadibna waxaan sii dhahaynaa next ama taali, kadibna qaybtan ayaa waxaan geli doonaa magaceena. magaca markaan gelina kadib waxaan leenahay taali ama next hadduu ingiriis ku saaran yahay. halkana taariikhda waxaad gelinaysaa qayb ku saabsan ugu yaraan inaad 20 sano aad jirtid. halkana waxaad ka sameynaysaa waxa aad tahay labidadig, kadibna qaybtan waxaad gelin doontaa lambarka. haddaad doonaysa inaad emailka furtana qaybta hoose ayaad jegsiinaysaa, emailka ayaad qaybtan gelinaysaa. aniga waxaan wataa email meel gaara, sidaa daraadeed koobiyaan soo leeyahay, halkan ayaan gelinayaa. kadibna next ama taali ayaan leeyahay. qaybtan waxaan samaysanayaa passwordka ayaan gelinayaa. saad doonta ayaad adeegan ka dhigan kartaa passwordka, waxaadan iloobeyn si aadan berri akoonkaaga xirmin. kadibna waxaan leeyahay taali. saad arkaysaan baa wuxuu leeyahay akoonkaagii waa diyaar ee hadda fur. halkan mushkilad baan ku dhacay oo ah in magacani aan ii ogoleyn ama dad badan ay isticmaalaan, sidaa daraadeed xarf ayay ku daran, waxay leeyihin mid kamid isticmaal, mid kamid ayaan kusoo dhufsaday. sidaa daraadeed akoonkii waa uu ii furmaya hadda. waxyar kadib waxaan geli doonaa qaybta kale. halkan wuxuu leeyahay emailka aad meesha gelisay waxaan kusoo dirnay koodkaasi halkan soo geli. koodka waxaan aad arkaysaan, koodkaas ayaan soo guurin doonaa, kadibna التالي next ayaan dhihi doonaa. okay, halkani akoonka ayaa u keenay waa profilkaygii. halkan wuxuu leeyahay sawir gasho, aniga tusaale unbaa sawir ma saaray. qaybtan istiraad jihaad si aad ugu furtid, kadibna saad arkaysaan baa akoonkii Facebook waa uu noo furmay. qaybta profilka ayaan habayn doonaa, badal istikhdaam ayaan leeyahay. kadibna qaybtan wuxuu leeyahay profilka saara magaaladaad joogtad hayso ayuu leeyahay, halka aad ku dhalatay geli ayuu leeyahay. garowe ayaan saaranayaa, iskoolkaad wax ka baratid, waxaad doontaad geli kartaa ama wax sax ayaad geli kartaa. halkan wuxuu leeyahay college-ka aad wax ka baratay, wax alla waxaan arkaysa urufnaya aniga si tusaale unbaa idinku tusayaa. kadibna halkeed ka shaqayso ayuu ku leeyahay, waxaan leeyahay Facebook. waxaan baas gelaa qaybtan haddii aad single tahay iyo haddii aad waxaan ku reer leedahay iyo adigana kala dooranaysa. qaybtan waa sawirka profilka dambe, qaybtan waa musiga. saa arkaysaan baa profilkii waa diyaar. okay, saad arkaysaan profilkan sin ayuu diyaar. haddii aan rabo inaan boosta geliyo waxaan sameynaa boosta ka hor. qaybtan waa muhiim oo waxaa la rabaa inaad kala ogaadid qaybaha dadka aad la wadaagayso boostiga aad gelin doontid. sidaa daraadeed waxaan saaray kul meel kasta. yani assalaamu calaykum saaxiibayaal, soo dhawaada ayaan ku qoray boostiga ugu horreeyay. saad arkaysaan waa kasta Facebook-kayga akoonkayga wuu ii shaqaynayaa. okay saaxiibayaal, haddii aan rabo inaan dad kusoo darsado ama aan rabo inaan wararka iyo wixii ugu dambeeya caalamkan ogaado, halkan ayaan ka baarayaa si aan u helo waan flow u dhaho si ay biri ugu soo dhacaan waxay soo geliyaan. qayb ka mid ayaan ku dhufanayaa. saad arkaysaan waa safka hore waxaa ku jira Universal TV oo Soomaalida ay wada taqaano. waxaan leeyahay flow, sidoo kale waxaan baarayaa BBC Somali. saad arkaysaan waa BBC Somali, sidaas sare maahan, mid fayga mid saxda waa. saas daraadeed waxaan leeyahay flow. saad arkaysaan waa kan waxyaabihii ay soo gelisay qaar ka mid. okay, mid ka mid ah asxaabteyda oo magaciisa garanaya haddii aan rabo inaan baarto sideen ku helaya. qaybtan ayaad ku qoraysaa, kadibna waxaad sii taaban doontaa qaybta people ay ku qoran tahay ama ashkhaas haddii carabi kuu saaran yahay. sidaa daraadeed magacii ayaad ku qoraysaa, kadibna waa uu ku soo bixi doonaa hadduu magacaasi ugu furan yahay akoonka Facebook-ka. saa arkaysaan waa qaar ka mid ah magacyada akoonkan magacaasi kusoo gala.
saaxiibayaal facebookii oo dhammaystiran sidaas ayaa nagu furmay muuqaalkan halkaas ayuu ku dhan yahay